gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa kormeerkadiisa ku gaalabixiyay laamaha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolkani Togdheer. Kormeerkani ayaa daaranaa dardargelinta iyo wax ka ogaanshaha shaqooyinka wasaaradahaasi, waxaana ay ka warbixiyeen qaar ka mid ah isduwayaashii uu la kulmay badhasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxyaabihii uu qabsoomay iyo waliba sida ay u socoto hawshu. Waxaan ku soo dhaweynayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda xagga dhaqaalaha haddii aan ka hadalno runtii shirkii wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Hargeysa ka dhacay 13 bishan Ogs waxaa shahaadooyin iyo bilasaraf lagu soo siiyay howlwadeennada wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer hadday tahay cashuuraha beriga iyo haddii ay tahay customskaba. taasna waxaa keentay kor u qaadista dakhliga qaranka oo gobolkan uu ka galay tobka uu ka galay ayaa keentay taasna keentay xagga dhaqaalaheena uu fiican yahay amnigeena uu fiican yahay. ugu horeyn gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ugu soo gacmo furan ugu soo dhaweynaynaa waana arrin runtii aad loogu baahan yahay marba waxa aanu hayno iyo halka ay wax nala marayaan in kormeer sidan oo kale aan loogu yimaado aad baan marka hore u soo dhaweynaynaa kaagana mahad celinaynaa. sagxada marmar baanu dhignay sida arkayseena wajahadana waan raacinay qaybta kale oo soo jeeda laftooda wali socota way noo socotaa. waxa kale oo aan raacinay inaan istambar guud aan marinay oo iyadana si guud aan u qurxinay xaruntii guddoonka waxbarashada. waxa kale oo gobolka ka socda gudoomiye dhowr iyo 10 iskuul ama dhowr iyo 10 galaas oo la kordhiyay oo iyaguna dhismahoodu uu gabagaba yahay oo imika meel wanaagsan marayo. waxa kale oo iyaduna gudoomiye aan runtii sanadkan noo qorshaysan inaan kor u qaadno tayada waxbarashada oo halkii ay joogtay aan kor uga qaadno. kormeerkaas oo hakadis ama warma qabto sidaan ku soo aragnay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga imikana waxaan joognaa wasaaradda waxbarashada sida ay u socdaan ama habsami u socodka shaqada ay wasaaradaha kala duwan ee gobolka Togdheer qaranka iyo ummadda u hayaan waan idinka mahadnaqayaa runtii annagoo warma qabto idinku nimi sida aan wax kala daadsanaan aanan idinku iman ee shaqadiina ugu diyaarka ahaydeen. sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan runtii fariin muhiim ah uga diro maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyay. marka hore runtii waan uga mahadnaqaynaa in maaragtay ay dabaqeen siyaasadda xukuumadda ee ahayd in iskuulada ay wada furmaan one time maadaama iskuulada ay furmeen 13 bisha si rasmiyana looba bilaabay ilaa 20 bisha inta la diyaar garoobayay. halkaa waxaad moodaa in waxoogaa cabashii ay mujtamacii ka soo noqonayaan oo la leeyahay maaragtay iskuuladii waxaa laga doonayaa barayfadka bisha August. marka waxa laga yaabaa qofkii waa ku culays in 2 bilood oo isgaaray oo August na laga rabo September kowdeeda laga rabo inay waalidiintii iyo dadka ay culays ku tahay. markaana fursadda ka faa'iideysanaya waxaan maamulayaasha iskuulada gaarka loo leeyahay ka codsanaya inay arrintaa hoos ay u eegaan oo maaragtay si ay ku jirto la xajeclo muwaadinimo tulaale uu ku jiro inay arrintaa bisha August ay maaragtay u dabaqaan oo waxa weeyaan xal wanaagsan oo qabow oo aan waalidiinta iyo dadkan culays ku ahayn ay maaragtay ka gaaraan. markii ugu horeysay ee uu gudoomiye Xamse Maxamed Cabdi kormeer ku tago wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolkani Togdheer ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.